waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno. بسم الله الرحمن الرحيم وبرنامجكي كبرو هودا aad kala socoteen TV-ga qaranka iyo idaacadda raadiyo Hargeysa waaniga macallin Kiise Xuseen Faarax waxaan maanta qaadan doonaa maadada xisaabta fasalka form 2ga chapterka afraad casharka labaad ayaynu qaadanaynaa casharka labaad iyo page-ka 196 ilaa 198 ilaa 198 intaasoo cashirkeenu maanta ahaan doonaa. maalintii hore aynu cashirkii ka horreeyay waxaanu kusoo qaadanay what's a set. setku muxuu yahay baanu kusoo ogaanay. waxaynu kusoo ogaanay setka iyo sida sumad ahaan loo muujiyo. waxaynu kaloo cashirkii hore kusoo baranay setka iyo sida loogu magac bixiyo oo in xaraf weyn la isticmaalayo marka setka la magacaabayo. waxaanu kaloo cashirkii hore kusoo baranay elementiska setku inuu leeyahay elements wax loo yaqaano xubno iyo ku tirsanayaal inuu setku leeyahay. waxaanu kaloo cashirka hore kusoo baranay elementiska setka marka la taxayo in hakadyo loo dhaxaysiyo iyo qaabka loo taxo ayaynu cashirka hore kusoo baranay. waxaanu kaloo kusoo baranay elementiska iyo sida sumad ahaan loo muujin karo ayaynu cashirka hore kusoo baranay. waxaanu cashirka hore iyadana laftigeeda kusoo baranay qaybta koowaad chapterkeenan 4.1ka intaas introduction baheed hore 4.1ka set cardinality-ga oo aynu define garaynay set cardinality-ga oo cardinality-ga maxaynu ku sheegnay marka cardinality-ga waxaynu ku sheegnay inuu yahay muxuu ahaa erey ama wax ka hadlaya tirada xubnaha ururku leeyahay cardinality-gu wuxuu wax ka sheegayay tirada xubnaha uu ururku leeyahay. marka definitionka cardinality-ga ayuun baynu casharka hore kusoo qaadanay. xagga marka la eegayo xagga tirada marka laga eegayo elementiska tiradooda ama tirada xubnaha marka laga eegayo ururka waxa uu kala baxayaa ururadu laba qaybood bay u kala baxayaan finite set iyo infinite set. urur kooban iyo urur aan koobnayn. Soomaaliga waxa la yiraahdaa urur kooban iyo urur aan finite set waa ururka kooban infinite setkuna waa ururka aan koobnayn. ururka koobani waa ururka leh tiro xubno ah oo cayiman ama meel ay ku dhamaadaan leh oo la oran karo xubnahaasi waa intaas. Is a set that has a finite number wuxuu leeyahay tiro cayiman of elements oo ah xubno ah. finite setku wuxuu leeyahay finite number tiro cayiman ama xadidan oo elements ah ayuu leeyahay. infinite setkuna muxuu yeelanayaa it's a set waa urur that has not a finite number of elements aan lahayn tiro xadidan oo cayiman oo ku tirsanayaala aan lahayn. kaasna waxa la yiraahdaa infinite set baa la yiraahdaa. ururadan labadaas baa loo kala qaybiyaa kuwa xubnahooda la garanayo oo cayiman yihiin iyo kuwa aan xubnahoodu cayinayn. exampleska haddaynu aragno maxaa examples noqonaya bal hadda eeg number A oo kale set A
hadduu yahay hee setka 1 2 3 4 ka waran waa 1 2 3 4 setkaasi ma finite set ba mise waa infinite set ma finite set ba mise waa infinite set ma urur koobanba mise waa urur aan koobnayn waxaad eegaynaa uun koobnaanta waxaynu ka eegaynaa uun xagga xubnaha un tiradooda dib ugu noqo kan xubnihiisu waa imisa xubnaha number of elementsku waa imisa number of elementska marka la qorayo sidanaa loo qori jiro marka number saasaa loo muujin jiray iyo magaca ururka number of set a waa imisa xabo waa 1 2 3 4 markaan maanta nambarada ma tirsanaya laakiin xagga xubnaha ayaan ka tirsanaya kan waa mid kana waa mid kana waa mid kana waa mid xagga waan ka soo bilaabi karaa 1 2 3 4 afar xubnood afarta xubnood buu leeyahay marka ma urur kooban mise urur koobnayn waa urur kooban maadaama xubnihiisu ay xadidan yihiin oo ay afar keliya yihiin bal b aan eegno set b aan isagana tusaale soo qaadano 1 2 3 4 5 dash 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 setka noocaasi waa ayo waa 1 2 3 4 5 dash 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 dashtu maxay muujinaysaa in uu soconayo oo meel uu ku dhammaado aan lahayn setkan marka waxaa loo jeeday set of natural numbers waa setka tirooyinka idilla meelay ku dhammaadaan ma leh setkani meel uu ku dhammaado ma leh already markaa lama odhan karo natural numbersku waa 100 tiro waa 1000 tiro waa million number tiro cayiman looma sheegi karo sidaas aawadeed muxuu noqonayaa infinite set ayuu noqonaya infinite set buu noqonaya okay bal daily lifeka ku noqo oo nolosha caadigaa bal aan yana eegno setka nolosha caadigaa soo gala maxaa finite set ah maxaa infinite set ah nolosha caadigaa markaan eegayno okay hore waxaan usoo aragnay casharkii hore tusaale ah member of your family set of member of your family ma finite set buu noqonaya mise infinite set member of your families set of members of your family set of members of your family setkaasi maxaad odhan lahayd ma set urur koobanba mise waa urur aan koobnayn waa urur koobanba mise waa urur aan koobnayn dee reerkiina iyo qoyskiina xubnahooda ama inta ay yihiin ma la tirin karaa mise lama tirin karo haddii la tirin karo waa finite haddaan la tirin karin waa infinite markaa dee nin walba reer walba waa la tirin karaa qoyskooda waa la garanaya marka wuxuu noqonayaa finite set buu kana uu noqonayaa wuxuu noqonayaa finite set buu noqonayaa finite set okay bal hadda hal example oo kale oo daily lifeka ah oo infinite setkana isagana aan soo qabano haddii la yidhaahdo ka waran ururka ardayda adduunka set of well students of the well ardayda adduunka ururka ay sameeyaan ardayda adduunka set of students of the well bal setkaa ka waran isagana of the well ma finite set ba mise waa infinite set ardayda adduunka ma la tirin karaa oo ma la odhan karaa waa adduunka waxaa jooga 100 arday waxaa jooga 5 arday waxaa la jooga milyan arday ma la odhan karaa maya lama tirin karo sidaas aawadeed maxay noqonayaan iyaguna maxay noqonayaan infinite set ayay noqonayaan marka laga eegayo xagga setska marka laga eegayo xagga cardinalityga labaa loo qaybiyaa finite set iyo infinite set finite setku waa urur kale xubno ku tirsan oo cayiman infinite setkuna waa urur kale xubno oo aan cayinayn oo ku tirsanayaala leh okay taasna waan aragnay tusaalayaala waynu ka soo qaadanay haddaba example ka buugana isagana aynu markaa aan raacno
aan eegno exampleska buugga waxaa kugu yaala examples wuxuu ku leeyahay consider these sets bal setkan aan tixgelino setkan aan tixgelino laba set baan markaa haysanaa setka koowaad waa maxay waa setka koowaad waa numberadan odd numberska ah 1 3 7 1 3 5 iyo 7 iyo 9 dash 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 setka labaadna waxa weeyaan awdal saaxil iyo sool labadaas set baynu haysanaa su-aalahan baa markaa inala weydiiyey kow su-aasha kood waxa la yidhi describe the set kasta waa inaad describe garaysaa oo inaad qeexdaa su-aasha labaad waxayna la weydiiyey add another two elements su-aasha saddexaadna waxayna la weydiiyey is the set finite or infinite 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 okay intaas aynu uga jawaabno solution and set 1 waxayna la siiyey setka ah set of odd numberskii oo ah 1 3 iyo 5 iyo 7 iyo 9 setkaasayna la siiyey saddex su-aalood bayna la ka weydiye marka saddex su-aalood bayna la weydiiyey describe the setka describe garee laba ku tirsana ku dar iyo sheeg inuu yahay finite iyo infinite set wuxuu kala yahay labadaana kala sheeg su-aasha koowaad markaynu ka jawaabayno marka describe the setka maxaynu kusoo qeexi jirnay what's the set is the collection of objects that has a common name waa walxo la isku ururiyey oo leh magac guud oo mideeya ama something in common waxay ku midaysan yihiin leh ayuu setku ahaan jiray wareed marka waxaad eegeysaa elementska halkan lagu siiyey maxay ka midaysan yihiin haddaba elementkani waa numberadani waayo waa 1 3 5 7 9 numberadani maxay yihiin haddaad tiraahdo waa natural numberskii waxay ahaan jireen 1 2 3 qaar baa maqan haddaad tiraahid waa ifa numberskana waa 2 4 labay u qaybsami jireen ma ayagii waayo dee 1 oo kale waa odd 3gu waa odd 5ku waa odd 7ku waa odd 9ku waa odd waa tirooyinkii odd numberska weeye marka wuxuu noqonayaa the set of odd numbers waxaad eegeysaa waan baaraynaa maxaa common ahaa ee setkan mideynayay su-aasha labaad in la weydiiyo waa maxay add another two elements laba xubnood oo kale ku dar okay dee setkeenu wuxuu ku joogay 1 3 5 7 9 waana odd numberskii odd numberka markaa ku xiga 9 ku xiga waayo odd numberka 9 ku xiga
waa kumaad ku dari waa 1 3 5 7 9 haye odd numberka markaa 9 ku xigaa waayo waa 11 odd numberka kusii xigaana waayo waa 13 okay taasna waa taas waxaa la yidhi su-aasha u dambaysa is the set finite or infinite setka waxaa kaloo inala weydiiyey setkani ma finite ba mise waa infinite setkani ma finite ba mise waa infinite set waxaynu eegeynaa haddaba finite set iyo infinite set maxay kala ahaayeen finite setku wuxuu lahaa tiro xubno ah oo cayiman infinite setkuna wuxuu lahaa tiro xubno ah oo aan cayinayn marka la qorayana haddii dash dash lasii raaciyo infinite set buu ahaa haddaan dash lasii raacinna waa finite set marka kani maadaamuu sii wato dash dash waa infinite set waa setka odd numberska oo dhanba odd numberska oo dhan odd numberska oo dhanna lama koobi karo lama oran karo waa 5 xubnood iyo 6 xubnood marka muxuu noqonayaa infinite set infinite set buu noqonayaa infinite set example 2 geena example 2ga waxaana la siiyey setkan la yidhaahdo xubnihiisu ay yihiin awdal saaxil sool awdal saaxil sool saddexdii su-aalood baa markaa inala weydiiyey describe the set add another 2 elements iyo is the set finite or infinite setku ma finite ma urur kooban ba mise waa urur aan koobnay saddex su-aalood baa inala weydiiyey setkan qeex oo sheeg wuxuu yahay setkani laba xubnood ku dar waa su-aasha labaad su-aasha saddexaadna waxa weeyaan setkani ma urur kooban ba ma finite ba mise waa infinite set ma urur kooban ba mise waa urur aan koobnay okay aan isku dayno haddaba inaan ka jawaabno horta ururkeeni noo soo qabo ururkeeni wuxuu ahaa awdal saaxil iyo sool saasuu ahaa okay su-aasha koowaad in la weydiiyo waa maxay describe the set awdal iyo saaxil iyo sool awdal saaxil iyo sool saddexdan elementi aynu haysano xubnood aynu haysana maxay ka midaysan yihiin oo common ku yihiin okay ma degmooyinba dhammaantood ma buura ma togogba maxay ka midaysan yihiin ay common ku yihiin awdal waa gobol somaliland ka mid ah magaca gobolna buu leeyahay saaxilna waa gobol somaliland ka mid ah soolna waa gobolka saaxil ka mid ah marka dhammaantood ereyada waxay mideeyay commonka ku magaca commonka waa gobol waa region waxaa noqonaya markaa waa regions of somaliland waa set of regions of somaliland su-aasha labaad aanu doonayna iyadana inaynu ka jawaabno halka kaga jawaabno waxa weeyaan add another 2 elements laba xubnood oo kale ku dar waad garatay sadku inuu ka hadlayo regions of somaliland waan isla garanay imika saddexdan gobol ee inaloo sheegay awdal iyo saaxil iyo sool dee gobolladii kale dhinaa laba mid oo ka mid ah oo kale inoo qor waa kuwama labadaas gobolada kale ayaan ku darayna marka wuxuu ahaa awdal saaxil iyo sool ayuu ahaa de waxaad ku dartaa haye sanaag waxaad kaloo ku dartaa togdheer su-aasha u dambaysa ayaanu ka jawaabayna waxa weeyaan is the set finite or infinite set setkeenu ma finite ba mise waa infinite ma urur kooban ba mise waa urur aan koobnayn ururkeenu waa cad yahay inuu yahay gobolada somaliland regions of somaliland regions of somaliland ma wax la tirin karaa mise waxaan la tirin karin dee waanu naqaanaa tiradooda waa 6 gobol kuwii hore asalka ahaa haddii damba kuwa damba lagu daraana dee number un baa ku kordhaya saas aawadeed waa urur xubnihiisa iyo kutirsaashiisa la tirin karo wuxuu noqonayaa markaa finite set ayuu noqonaya finite set ayuu noqonaya okay halkaana waxaynu kaga baxaynaa set cardinality-ga oo aynu hore usoo qeexnay
laba qayboodna markaa uu qaybinayay setiska oo marka cardinality laga eegayo infinite iyo finite ahaa. tusaalahan markaa maanta qaadanay waxa inuu ku inoo caddeeyey inaynu muxuu ahaa ururka qeexi karno iyo inaynu sheegi karno inuu urur kooban yahay iyo inaan urur kooban ahayn. okay waxaynu ku daraynaa hal cashar oo yaroo kooban ayaynu isagana ku daba qabanaynaa. hal cashar oo kooban 4.2 equality okay setisku goormay equal noqonayaan goormaysa aanay ahayn setisku aanay equal ahayn bal taas aynu eegno. two sets are equal if and only if they have same elements. labada set waxay noqonayaan equal sets. labada set waxay noqonayaan equal sets waxay noqonayaan markay leeyihiin same elements, xubno isku mid ah markay leeyihiin waxaad oranaysaa labadaas set waa equal. tusaale ahaan haddii set A uu yahay setka 1 2 3 set B na uu yahay setka 2 3 iyo 1 set A and set B bal ka waran ma isleegiin are they equal or not? ma noqonayaan laba set oo isleeg mise maaha laba set oo isleeg? laba wax baynu ka eegnaa marka laba shardi baynu eegnaa. kow xubnahoodu ma isku tiro ma isleegiin isku midna ma yihiin. okay set A waxaa ku jira 1 waa in laga helaa set B waa 1. set A waxaa ku jira 2 set B na waxaa laga helayaa 2. set A waxaa ku jira 3 set B na waxaa ku jira 3. marka waxaad aragtay they have same elements waxay leeyihiin tiro xubno ah oo isku mid ah ayay leeyihiin. waxaan leenahay set A and B have same elements. set A iyo set B waxay leeyihiin tiro xubno ah oo isku mid ah same elements. saas aawadeed therefore set A is equal to set B. set A wuxuu leekaanayaa set B buu leekaanayaa. set A wuxuu leekaanayaa set B buu leekaanaya. waxaynu halkan ku soo aragnay haddaan yaro dul maro equal setsku equality-ga wuxuu sheegayaa setsku goortay isleegyihiin iyo markaanay isleekayn. two sets are equal if they have only same elements. intaasun ku dheg laba set way isleegyihiin hadday isku xubno yihiin. laba set way isleegyihiin hadday isku xubno yihiin oo xubnahoodu isku mid yahay. labadaas set way isleegyihiin haddaanay xubnahoodu isku mid ahayn isma leeka. okay reer oday baa wuxuu dhalay 5 hablood oday kalena wuxuu dhalay 5 wiil. labadaas set ma isleekaanayaan? dee maya hablo iyo wiilal bay kala yihiin. 5 iyo 5 ha noqdaane hablo iyo wiilal bay kala yihiin marka they are not equal. markay halkaan waxaanu ku soo joojinaynaa iyadana equal setsku inaynu aqoonsano equal setska. waa halkaan nagala koley waa casharkeena maantuna halkaas ayuu inoogu joogi doonaa. waxaad nagala socoteen barnaamijkii ka baro tv-ga qaranka ka baro hawada. intaynu ku kulmi doonaa casharka ku xiga. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba
ubax laga waraabsho waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weewean mayno wahsan mayno